السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada dhamaantiin meel walba joogtiin waxaanu ka codsanaa hadii ay tahay markii ugu horeysay barteena channelkeena soo booqato Somali Online Opportunities inaad subscribe dhahdo muuqaalkan haduu kusoo gaarna like saarto dadka intooda badan halkan ku jira wuxuu badan yihiin meeshaan ay ka barteen waxa la yiraahdo marketka forex-ka asharaantiisa oo ku saabsan yahay muuqaalkan maanta uu ka duwan yahay muuqaaladii hore aan halkan usoo gelin jirnay laakiin muuqaalkan wuxuu ka hadli doonaa si guud qof walba oo online business ku jira waxyaabaha suuqyada online-ka ku sii hayn kara oo muhiim tahay inuu ogaado wax kale ma noqon karaan afar qodob ayaa inta ugu badan ay muhiim tahay qof inuu ku tiirsanaado waa hadii uu rabo inuu waxa la yiraahdo online business ka qayb weyn ka sii ahaado oo mar walbana uu waxa la yiraahdaa uu dhaga furnaado hadii aynu qeexno waxyaabahaas iyo afartaas qodob ay muhiimka ay tahay waxa weeye qodobka koowaad waxa la yiraahdo time management oo qofku haduu timekiisa ayimnayn kala duwaneyn waqti uu firiya uu sijirin waqti uu shaqo aad uu sijirin time management dhan male sababtoo qofkaas timekiisa dhan waa isku dhaxyaasayay aad buu confuse u tahay ma fahmi karo xilliga uu ku habboontahay inuu waxaas qabto iyo xilliga uu ka joogi lahaa sababtoo timekiisa dhan ayaa wuxuu yahay isku dhaxyaa oo buuqa time management si aad u sameysay asaga laftigiisa ayaa waxa u baahnaan kartaa inaad laba siyaabood aad sameysid siyaabada koowaad waa in horta ku ogtahay waqtigaada ii sheeg shaqada ya aadid shaqo ina aadid kaliya ma ahan shaqadu waxay noqon kartaa yani inaad lacag qaadato ma yani shaqadu waxay noqon karaysaa inaad waxbarasho aadid inaad dana kala qabsatid waa asaga waa time shaqo oo qayb ka yahay ma marka waa inaad ogtahay time-ka shaqada aad aadaysid aad free ahayn kan kalena waa inaad sidoo kale bilcagsigiisa way aad ogtahay time-ka aad free tahay oo aad waxba qabanin oo aad free tahay aad haleeli karto wax walba u baahan tahay inaad sameysato caadiin bas ognahay waa adag tahay taas sababtoo dadku intooda badan way balan garayaan waxa kale okay biriyo kala ku imaanaya biriyo waxa kala sameynaya laakiin hadii uu dhigi karo maano free baan ahay waa yartahay ma fahmi marka waa inaad labadaas kala ogaatid time management-iga oo aad ogaatid free time-kaada iyo kan aad mar walba aad hawlhaysid waxay ka saaciidi doontaa inaad maxaa la yiraahdaa aad suuqyadan iyo waxyaabahan aad u nugulaatin haddaba qodobkeena labaad hadii aynu ku sii socono wuxuu noqonayaa qodobkeena labaad prepare your things waa inaad diyaarisid waxa la yiraahdo waxyaabihii aad markaas aad isticmaalaysay agabkaadii inaad diyaarsatid oo agabkaada maxaa kamid ah inaad computerkaada oo kale aad diyaarsatid internetkaadii oo kale miiskii meesha aad wax ku yara habaysan lahayd ma garanaysaa waa inaad diyaarsato miiska kale muhiim aad iimaha laakiin computerka kale waa inaad qasab ku yahay internetkaada waa inuu qasab ku yahay oo haddaad internet haysanin oo meel ku ogeyn computer meel ku ogeyn de waxaad maxaa la yiraahdaa qaban kartaa iska yaraanaysa adduunku maanta wuxuu u gudbay technology iyo computer iyo sheekadaas la isla gaaray shaqo walba hadda waxay dhexdaalaa computerkaada inaad ka dhex dhameyn kartid kana dhex bilaabi kartid soo marka waa ku qasab inaad computerkaada internetkaada iyo miiskaada meesha aad la yara fadhiisan lahayd aad garanay inaad isku dabaridataa haddaba qodobkeena saddexaad wuxuu noqonayaa learn the knowledge of the market waa suuqa aad markaas ku jirtid ha ahaado forex crypto waxyaabahan kale oo freelancerka lagu noqdo online-yada shaqooyinkan kale laga qabto oo qofka soo caadiyin gurigiisa joogo kale uu shaqo kuu soo dirsanayo aad u dhameyn karayso wuxuu rabaa aado marketing iyo waxyaabahaas oo kale la xiriiro oo kale aad u dhameyn karayso kadibna aad maxaa la yiraahdaa meelahaas aad ugu dir leed ha ahaadaan laakiinse waa inaad shaqada aad qabanaysid xirfadeeda aqoonteeda waa inaad si dhammaystiran aad u taqaanaa haddii aysan taasi dhicinin sababtoo bataatanba waxa la yiraahdo ma qaban karaysid aqoon malihid kugu filan soo qaybna mar walba ma kasi ahaan kartid suuqyada sababtoo maalinba aqoon ayaa isa soo kordhinaysa aqoon ayaa imaanaysa aqoon hadaa lahayd
aqoontaas kale waa la qabsan kartaa. laakiin haddii aad aqoon lahayn way adag tahay inaad la qabsatid systemka cusub iyo aqoonta cusub oo mar walba soo dhacda oo updatingka inaad fahantid. so si ay taas u dhicin marka waa qasab inaad aqoon lahaataa, aad wax barataa, waxaas aad xiiseynaysa inaad maxaa la yiraahdaa aad ku dhex jirtid marketka, aad la joogtid, aad dadka uga duwan tahay, aad ku faanaysid. waa inaad aqoon buuxda u leedahay, sababtoo ah waxaa fududaanaysa markaas aqoomaha kale si aad ku heshid. okay, markaa qodobkan baranaysid maxaa la yiraahdaa aqoonta suuqa, laba hab unbaad u baran kartaa. labadaas hab mid saddexaad iyo mid afaraad ma jirto. qodobka koowaad u baran karayso waxaa weeye waa in adoo bilow ah aad meel dhexdhexa aad bilow to dhexdhexaad camal aad iska agtahay. waa basic to intermediate camal ma fahan, oo haddaad bilowday wixii baad baranaysaa. intermediate-ka waa intaas aad isku wadwadaysa ma fahan, aad waxaa la yiraahdaa practical iyo wax badan backtesting badan aad ku jirtaa. waa qodob koowaad oo taas markaad sameynaysid qof yacni maxaa la yiraahdaa ma noqon karaysid lacag sameyn kara. sida tusaale oo kale forex markaa ku jirta, qofku basic markuu yahay uu bilow yahay ilaa intermediate-ka uu ku socdo lacag ma sameyn karo. waa aqoon unbuu baranaya mooyaane wax kale ma soo siyaadin karo. qeybta kale iyadan waxa weye waa intermediate to advanced. intermediate to advanced-ka waa inuu qofku meel dhexe joogo, meel korna u socdo, kadibna wuxuu sameyn karayaa qofkaas inuu lacag sameynayo, shaqadaas ka sameynayo full maxaa la yiraahdaa professional ma ahan, laakiin wadadii professionalka ayuu ku socdaa oo wax walba waa uu garanaya. aad iyo aad buu ugu fiican yahay. waana midda ugu fiican oo qofku asoo wax baranayo, waxna shaqeynayo, waxna sii korsanayo. waa heerka ugu muhiimsan nolosha waxbarashada oo markaas qofku uu ku jiro. waa mid aad iyo aad ugu fiican waay. haddaba labadaas qodob markaad kala fahantid, basic to intermediate, intermediate to advanced, waxaa u baahan tahay qodobka afaraad oo asaguna ah waxa la yiraahdo risk management. business walba ku jir, wax walba samee, aqoon walba lahow, haddii uu qodobkan risk management ka maqan yahay waa ahaatay meeshaan kuma jirtid, qeybna kama sii ahaan kartid, waana ku fashilmaysaa mustaqbalka. sababtuna ma aha wax kale, wax walba markaad ku jirtid qatar ayaa soo wajihi kara, wanaag badan ayaa soo wajihi kara. wanaag marka marar badan buu waa inta ugu badan oo kusoo wajahda, laakiin hal qatar oo ka hor timaada ayaa wanaag badan qarin karta. si marka taasi ay soo dhicin, waxaa qasaba inaad marka horeba aad ka yara fikirtid. online sidiisa ma ahan meel aad maalin aad dhigi karto ku sii nagaanaya. waa maalin wax walba isbedeli kara, technology isbedeli karto. adoo xitaa ayadoo kugu fashilmin baa laga yaabaa inay wax cusub kugu noqdaan. si marka aad ugu wareerin oo wax walba aad u sii ahaato, waa inaad marka hore kasii feejignaato oo aad la socoto khatarahaas. qodobkeeda kale ayadana waxaa waaye su'aal kale dakhligaada oo kale waa inaadan online ka wada dhex dhigin oo atraa company hebel qayb baan ka ahay, company noocaana qayb baan ka ahay, forex waan ku wada shubay, crypto baan ku wada shubay. waa inaad dhihin midba waa inaad qayb gelisaa sababtoo ah intoodaas mid kamid a markay wax soo wajahaan yaad ku fakanaysaa qaybtii kale, qayb kale. laakiin haddii aad hal meel ku tiirsaneed, adiga dhan ayaa fashil noqonaya, waxna ka faa'iidi maysid, waana ku dhibaatoonaysaa. mustaqbaliyana waxaan dhan bay kaa saaraysaa, waa iskaga carari doontaa marka u dambeysa. si marka taasi u dhicin, waa inaad ka yara fikirtaa marka hore oo meelo kala duwan aad la gashaa. si hadda waa dhaweytaan weynba kambanigii my forex funding oo ahaa maxaa la yiraahdaa platform iyo company dadka la yiraahdaa qayb gado, akoon ka gado, kadibna ku shaqee 70% ka qaado, kadib wixii ku dhacay waa la ogaa marka. inkastoo faa'iidadiisu fiicneed oo qof walba wax ka faa'iiday, laakiin dal waxa jira sidaas la mid ah dad markaas aan wali waxba kala bixin laakiin lacag ku gatay. dadkaas oo kale caqabad ayay ku tahay oo waa ka shalaysan yahay. marka si taas kugu soo dhicin, waa in ogaataa adiguna risk management-ga. mar haddii marka aad risk management-gan ogaatid, aad ku yara dhabar adeegtid, aad la socotid oo ama bugaag badan ka akhriyay ama si badan ugu xeeldheer aad aqoon badan ka yara haysatid, haddaad online ka tagtid waad ka helaysaa walaal video oo kaa yara saacideynaya. marka waa inaad aad isagana wax ugu ogaataa. waa sababta
kaa dhigi karta inaad zaaid ugu dambeyso suuqan mise aad kusii jirtaa. waa markii ugu dambeysay haddii aad fahamtay 4 qodob mid walbana qiimihiisa aad garanaysid aad uga heshay waa ku mahadsan tahay. laakiinse waxay u baahan tahay maxaa la yiraahdaa ku dhaqaaqid iyo mid walba gaarkiisa inaad ula macaamishid. 4 ayaa waxay ka dhigi kartaa qofka qof professional ah oo marketyada online ka dhan qayb kasta aad kuma xirna forex-ka ee ayul online market kasta oo markaas aad rajo kala heed mis aad ku jirtid ayuu ka saacidin karaa. haddii aad ka heshay muuqaalkan waa ku mahadsantihiin dhammaantiin. insha Allah haddii aad u baahantihiin muuqaalo sidaan oo kale oo muhiim ah inaan idin soo diyaariyo isbuucii hal mid idin soo gelin doonaa. description-ka iyo qaybta commentiga inoogu reeba waxay ku saabsan fariintiina. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.